kulan ay si wada jir u soo qaban qaabiyeen dalada dhalinyarada Somaliland ee Sooyo iyo hay'adda caalamiga ah ee Care International oo ujeedadiisu ahayd xal u helidda aafada tahriibta ayaa waxa lagu qabtay magaalada Burco waxaana ka soo qayb galay kulankan mas'uuliyiin ka kala socda maamulka heer degmo iyo heer gobol abwaano iyo dhalinyaro waxaana ugu horeyn halka ka hadlay Maxamed Ciidid oo ah mas'uul ka socday dalada dhalinyarada Somaliland ee Sooyo oo ka warbixiyay ujeedada kulankan maanta aynu iskugu nimid waxa uu daaran yahay in aynu ka wada hadalno sidii bal tahriibta aynu yareyn lahayn iyo sidii aynu xal uga raadin lahayn waxyaabahan keenaya tahriibta maxaa bilaabis u ah tiirarada wax waliba leeyihiin bal tiirarka tahriibta keenaya inuu dhalinyarteenu baxdo ayaan hawshan iskugu nimid kulanka waxa soo wada abaabulay hay'adda Care International iyo dalada heer qaran ee dhalinyarada Somaliland ee Sooyo arrinkan kaga wada hadlaynaa waa tahriibta sida aynu yareyn lahayn waxa kale oo ku hadlaynaa sidii aynu daba qabateen lahayn jiilkeena yar ee iskuulada dhiganaya marka waxa aynu maanta arrinkeenu u daaran yahay inuu qof kasto ay naga midi wuxuu xal u arko uu ka sheego bartan sidoo kale waxayna kulanka ka hadashay Nimco Xaaji Cali oo ka socotay hay'adda Care International oo ka hadashay dhibaatada tahriibtu ay leedahay iyo sida ay lagama maarmaan u tahay in laga doodo waxyaabaha ay salka ku hayso aafada tahriibtu si xal looga gaadho war maxaa sababaya dhalinyarteenu quruxda badneed u bixin wadankeena kuwii mustaqbalka wadankeena u hayay inay maalin kasta iyaga arkaya waxa dhimanaya haddana socdaan isweydiinta waxay noqotay war balans waraysan oo aan ogaano halkay sartu ku qudunsan tahay mashaqo la'aan baa jirta ma problem kale ay haysta ma wadankeenu nacno inagaan muwaadin baa ahayn maxay inagu arkayna dhimashada maalin kasta intaasoo milyan intaasoo reer oo baaba'aya intaasoo hooyo oo goblamaysa hooyada iyo waalidku marka adiga ku soo koriyeen haddana ma aha inay ka warwaraan maalinta jaamacad ka saarayeen talo miyuu tahriibi doonaa ama loogu hanjabo haddii waxa isii weydo waan tahriibaya haddaba waxaan leeyahay xal ma aha tahriibkii aynu bal xal kale raadino wadan kale inagaas kale ma nihin marti marka meeshaada Yurubna 9 bilood lagu dhalay baa hagaajistay halkan inaga 9 bilood lagu dhalay baa hormeynaan horumar ka sameeyay wadnaha samarkii iyo dushiiba ay naga soo dhamaatay samarka iyo dusha maxaynu ku heli karaynaa war xadhiga Ilaahay aynu qabsano markaad xadhiga Ilaahay qofkan qabsano waa baadi anigu waxaan oran lahaa aynu hoos aynu dib u noqono doodahan oo kalena aynu laasino horta tahriibtu marka aan ku soo dhawaado waa shay anigu waxaan qiimeeyay asma ku sameeyay inuu yahay wax xanuun bulshada ku soo korodhay oo runtii aafa ah oo aynu ka dareemi karro intuu dhimasho iyo dhaawac iyo qalbi jab iyo hanti burbur inoo geystay aad dareemi karto qof inta shay wax baratay oo inan bale oo sidaa inanku inoo sheegay ku maratay baraha dalkeenuna runtii ganacsiga marka la eego waa dal soo koraya chance badanna leh waxay soo diinay qofka ka tagaya Somaliland ilaa Talyaaniga marka tago inteeda ku baxda way ka warayna tunta sanduuqa marka Talyaaniga tago noloshiisa waxay ku jirtaa halkii Burco ka tagay Hargeysa ka tagay meel kale liidata kuwii tagay way tageen maxaa looga baahan yahay dad kooda jooga dhibti dhamaantii way noo taabatay guri kasta way taagan tahay guri aan taagnayn oo aan lahayn qofka ka tahriibay guri aan taagnayn oo aan lahayn qof tahriibay waa ka dhintay waxaan u maleynayaa gobolkan joogno inaan ka jirin waxa la intaana joogta iyo intaana daawanaysaa aynu ku cimro qaadanno intii naga tagtay hay noo noqoto tusaale fiican inteena joogta jaanisada inay jiro laga faa'iideystay aynu ka faa'iideysanno isku soo wada duuduubo kulankan ujeedadiisu ahayd sidii looga doodi lahaa waxyaabaha ay salka ku hayso aafada tahriibta ayaa waxa dhalinyaradii ka soo qayb gashay kulankan ay kula fakureen isla markaana kaga doodeen waxyaabaha keenaya tahriibta dhibaatada tahriibta iyo siyaabaha ay dhalinyarada la fahanteedu qayb uga noqon lahaayeen xal u helidda aafada tahriibta